السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب سود هذا ما أنت واحد لو ذا قدرنا طبعا كمحبوس هو خطر تبدأ أما سكلا دلود ووارح قدرنا نكر وحلو مقعبة جون وين وعوا نسي الدبيعي أو شيء أنا حنون مسكح ذا قدعة أوصل كدعين وعوا برر له عرنا وجوته بل سوى حو قرصونا نرى الوالن يسوى هولا فولحن هوسك فلنجري وحب اللو مقعبي فللكيسي مركي لارك فوش حميد بوجو مهري waxa uu isku soo ekeyn jiray shakhsiyadda khiyaaliga ee afqalad lagu yiraahdo clown waxa caruurtii la weysanaa raqdoodii laga helay guri khaasa oo ku lahaa dhinaca webiga isagoo caruurta soo afduuban jiray kadibna guriga tuugaysto halkaas ku diri jiray ninka labaad waxa lagu magacaabaa Dave Franklin Styles ninkan waxa uu dhashay isagoo kala dhiman oo xubnihiisa qaar ayaa shabahayay xayawaanka argoosatada loo yaqaano ee badda ku jira ninkani markuu nin weyn noqday dabeecad kul ayuu yeeshay iyadoo ay saatay waxa uu guursaday xaas caruurna ay u dhashay balse arrimihii ayaa isbedelay oo waxa uu bilaabay inuu handado xaaskiisa iyo caruurtiisa inuu dilayo markii ay go'aansatay gabadhiisa inay guursato waa uu ka xumaaday wuxuuna dilay gabadhiisa habeenkii arooskeeda markii la qabtayna wuu qirtay mana uu muujin inuu ka xun yahay ficilkii uu ka kacay waana lagu xukumay ninkani 15 sano oo xarig ah markii uu xabsigii ka soo baxayna wuxuu dilay xaaskiisa isagoo ka xun inay nin kale guursato ninkani saddexaad waxa lagu magacaabaa Jason Bartlett ninkani oo da'diisu ay tahay 39 sano jir waxa uu ku naynaasnaa ninkii isha barta ku lahaa sababta lagu naynaasay ayaa ahayd inuu wajiga qaybta midig shaabado talanteel ah ay kaga sawirnaayeen ishuna ay madooweyd madaxa dhakadiisana uu kaga sawirnaa qalfoof madax bini'aadam ah ninkani waxa la qabtay 2011 isagoo lagu helay dambi ah inuu dilay nin askari ah isaguna waa uu qirtay inuu dilay markii diiwaankiisa la sii baarayna waxa la ogaaday inuu galay dambiyo fara badan waxaana lagu xukumay muddo ah 20 sano oo xabsi ah waxa uu ka dhaxiyay maxkamadda dhexdeeda dadku waxay og yihiin inaanan ahayn nin qurux badan balse wuxuu ku tiraabay inuusan dib dambe ugu laabanayn wadadii foosha xumayd uu hayay ninka afaraad waxa lagu magacaabaa Nare Tikatiro waxa uu maraha macallin iskuul waxa uu dhashay 16 Oktoobar 1936 magaalada Ukraina ee dalka Ruushka wuxuu ku soo koray nolol aad u adag yaraantiisii waxa uu ku kacay shaqooyin xunxun oo waxa uu nafta dhaafiyay 52 haween iyo caruur aad u tiro badan isagoo hawshaas dilka ku jiray muddo 20 sano ah wuxuuna kaloo geystay falal kaloo badan mar ayuu xabsiga galay balse uu ka soo baxay waayo cadayn mugle looma hayn mar dambe ay askarta dambaarista ayaa kamin u dhigay 1990kii ayaa gacanta lagu dhigay wuxuuna qirtay inuu dilay 36 haween ah wuxuu markii dambe cadaaday inuu dilay 52 haween askartii dambaarista ee Ruushka ayaa u soo bandhigay inuu karaamo ku dhinto uuna qirto dambiyadii uu galay inta aan xukunka u fulan qofka shanaad waa haweeney islaantani waxa lagu magacaabaa Shafes Teron islaantani waxa laga matelay qisadeedii filmaan badan oo jaayisooyin lagu helay waxayna ku naynaasnayd haweeneyda bahalka ahayd iyadoo dishay 2 sano gudahood 7 nin intii u dhaxaysay 1989 ilaa 1990 haweeneydani barbaarin hagaagsan ma soo qaadan yaraanteedii waa la xiray waxayna qarantay dambiyadii ay gashay muddo 4 maalmood kadib waxa lagu xukumay 11 sano oo xarig ah xukunkeedii markii la yeeriyay inta ay xanaaqday ayay qaylisay waxayna ku tiraabtay in haddii xabsiga ay dhamaysato ay hawsheedii meesha ay ka sii wadi doonto iyadoo oo ku faraxsan ninka lixaad waxa lagu magacaabaa Rodney Alcala nin dilka ku xildheer kaliya muusa ahayn ee waxa uu ahaa nin qurux badan oo gabdhaha inda daraadar ku ridi jiray isagoo dilay 50 haween ah sanadku markuu ah 1970kii markii la qabtayna wuxuu qirtay inuu dilay 34 haween ah kadib baaris kaloo lagu sameeyay waxa ayna askarta baaraysay dambigiisa aaminsanaayeen inuu galay 140 dambi kana uu geystay gudaha dalka Mareykanka waxa la yaabo ayaa ahaa in markii uu qofka dilo uu sawir ka qaadi jiray ninkan waxa lagu xukumay dil sanadku markuu ahaa 2010kii isagoo inta dilka lagu xukumin
11 sano horay u liqay, waxaana la aaminsan yahay in tiro badan oo dad ah uu dilay uuna qarinayo. ninka toddobaad waxaa lagu magacaabaa Yohan. wuxuu xabsiga u galay alaab uu xaday darteed, balse sanadku markuu ahaa 1974 ayuu isu bedelay dhigyacab, wuxuuna markii ugu horreysay ciijo ku dilay haweeney iyo sidoo kale 40 haween ah ayuu raaciyay. intaas kadib waxa uu wareegayay Los Angeles, wuxuuna halkaa ka sii waday dilkii. mar ayaa la qabtay, balse xabsiga isla markiiba waa uu ka soo baxay isagoo kaartooyin isticmaalay. markuu xabsiga ka soo baxayna mar labaad ayuu laabtay hawshii foosha xumayd. kadib markii labaad ayaa la xiray, wuxuuna qirtay inuu haween badan nafta dhaafay, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. arrinta dad badan ay la yaabay ayaa ahaa inuu ahaa ninkan dilaaga ah. qoraa wargeysyada Mareykanka ka baxa mid ka mid ah ayuu wax ka qori jiray. xabsiga markii la geliyeyna wax qoridiisii wuu sii waday. qofka 8aad islaantan waxaa lagu magacaabaa Milan. waxa ay diiwaanka ku gashay inay ka mid tahay dadka nafa badan ay gacantooda ku baxeen, waxayna cunno kariye ka ahayd maqaayad ku taalla magaalada New York. waxayna cunnada ku diri jirtay sun ay isku qooshtay oo daacuunka oo kale ah, waana la xiray. waxayna inkirtay inay dembiga gashay oo cudurkan uu yahay mid dabiici ah. intaas kadibna waxaa caddaatay inay xanuunsan tahay, una sheegtay askarta inaysan ogeyn inuu xanuun hayo. cudurdaarkaas dartiis waxay Milan noqotay mid ku noolaata si xorriyad leh, balse dib ayaa waxa ka caddaaday inay cilmi u lahayd xanuunkeeda, dadkana ay si kas ah u samayn jirtay. ninka 9aad waxaa lagu magacaabaa Dennis Rader. intii u dhaxaysay 1974 ilaa 1991 waxa uu dilay 10 qof gudaha dalka Mareykanka. ninkan waxa uu ku jeesjeesi jiray booliska isagoo waraaqo u soo qori jiray si uu u gudbiyo warbixin ah inay boolisku Itaaliyaan yihiin oo aysan asaga qaban karin. muddo kadib waxa uu joojiyay waraaqadihii uu boolisku u diri jiray. sanadku markuu ahaa 2004 buu diridii waraaqadaha dib u bilaabay, taasoo ka caawisay boolisku inay ogaadaan boosku ku sugan yahay soona qabtaan. waxaa la soo qabtay sanadku markuu ahaa 2005 waxaana lagu xukumay xabsi daa'im, ilaa haddana xabsigu ku jira. ninka 10aad ee ugu dambeeyo waxaa lagu magacaabaa Gacmo Weyne. waxa magaca loogu bixiyey waayo dadka gacanta ayuu ku dili jiray, wuxuuna ninkani galay 5,000 oo dembi, wuxuuna gaaf wareegi jiray gaararka magaalada Istanbul ee dowladda Cismaaniyiintu ay ka talin jireen, wuxuuna maalin walba dili jiray 4 qof muddo 4 sano ah. dadkani ciijo buu ku dili jiray isagoo gacmihiisa adeegsanaya. muuqaalkan intaanu ka egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.